bismillaah waalid hooyo waxay la soo xiriiray wadankii ilmaheeda geysay ilmahani wuu ooyayaa mar walba maxaa ku dhacay waxaan hadda ka soo hadalay ilmaha marka wadanka la geeyo dhibaatooyinka iyo caqabadaha ay wajihi karaan channelkan adaa lagu sameeyay waalid waxaa la yiraahdaa waalid legacy fadlan subscribe dheh walaalaha muslimiinta la share garee cultural shock haddaad maqasho waa waxa dadka aada meel aanay hore u tagin ku dhaca waa dhaqan ka hor imanaya waa naxdin iyo shock ugu dhacaya oo kaaga imanaya culture-kan iyo habdhaqankan iyo lifestyle-kan aad hadda la falgalayso ee ku hor yaalla dhowr marxaladood buu maraa afar baa inta badan la sheegaa afartaa waxa weeyaan honeymoon frustration adaptation iyo waxay yidhaahdaan adjustment honeymoon waxa weeye marka hore markaad timaado u fiirsan waalid markaynu nimid wadamadan qurbaha markiiba waad ku indhasarcaadaysaa baabuurtan dabaqyadan sawiro iska qaad reerkii u dir aroos walba maxiis ka noqo driver license ka qaadanaya cuntadan aan cunay waxaasaad ku mashquuli muddo kadib waxaad galaysaa honeymoonkaad ka baxaysaa waxaad galaysaa waxa la yiraahdo frustration oo ah markiiba waxaa ka hor imanaya dhaqankan markiiba noloshan adag ee subaxii shaqada aadayso eed soo noqonayso biilashii soo dir dadkii Afrika ku soo wacaya iyo waxyaabo badan oo lamid ah sidii aad u cibaadaysan jirtay farax badeed ma jirto shaqadan waxa laga yaabaa meel aad ku tukato ma helaysid barafkan iyo qabowgan lamaadan qabsan qof ride ku siiya waxaasoo dhan baad galaysaa waad ka baxaysaa marxaladda saddexaad waxaa la yiraahdaa adaptation waxa weeye markiiba waxaad isku daysaa inaad la qabsato meeshan saaxiibo samaysato luqadii barato dhaqamadan barato noloshaada aad dabarto waayo waxay dantu kugu qasbaysaa in aad la qabsato kadibna waxaad galaysaa marxaladda u dambaysa oo ah waxa la yiraahdo adaptation oo ah meelaad uga socoto meeshan ma jirto waa markay Soomaalidu siyaasadaha wadankan galayaan guri baad iibsanaysaa Islamic school baan rabnaa inaan sameeyno meel looma socono masaajid aan sameysano waxaad la shaqeyn wadanka aad joogto siyaasiyiintiisa saad wadanka aad ka timid aad ugu xidho waxaasoo dhan waa maraaxisha cultural shock ilmaha wadanka waalid marka la geeyo waxay iyaguna maraan maraaxil kuwaasoo kala ah oo markiiba ah xiisay la tagayaan meesha wadankii baan rabaa inaan aado ehelkii baan rabaa inaan aado inta badan waxbaa u sawiran moviyada markay daawadaan ee Africa iyo waxaan yiraahdaa planet earth iyo xayawaanadan waxaasaa u sawiran meesha markay tagaan marxaladda u horeysa ama cultural shock u horeeya ku dhacaya waa maxay meel zaxmad badan meel faqri yaalo meel dadku ma aragtay crowded ah meel dhaqanka yaqaanin aanan jirin qaabkii musqusha u isticmaali jireen ma aha qaabkii ugu fariisan jireen ma aha raashinkii yaraa ee khudradu miiska korkiisa iska kor saarnaan jirtay male dadku markay wadanka aadaan gacan muusay soo iibin waxoogaa khudrada meel baa la dhigi waa lagu kala yaacay ilmihii waxay oran mami who ate the fruit meeshan waa wadankii weeye ma ah Mareykanka joogtay ee Yurub way yara wareeri marka qaylada buuqa qof guriga sigaar ku cabaya shock waa ku dhacay waxay mani family drama dadkan wadankii joogay intooda badan runtii qaybo badan oo kamid ah waxa dhihi dad abaal leh ma aha dadku dadkii ay biilayeen markay yimaadaan waxa laga yaabaa kuwa badan oo kamid in iskala kala dagaalamaan in aanay ku ixtiraamin in adiga cusbaaye martida ahaa aad isku dhacdaan ilmuhu waxana way eegayaan marka clashkan dhacaya way yaabayaan marka qofkan muuna abti ahayn maana habar yar ahayn maxay hooyo ula dagaalayaan maxay hooyo waxa uu sameynayaan waxaasaa galaya social pressure dadku isku mid maaha dad baa guriga iman maanta oo dhan ku dhaga hadli kuwana la keenay waa ciyaalka meesha waa ciyaal baraf waxba ma garanayaan bullying way waxaas ilmahani way internalize gareynayaan waxanay dhageysanayaan markiiba way qaracmayaan odaybaa iska iman guriga iman oo reerka abti waa gabadha abti ah markaasuu dhihaye meeshan waa dhul muslim quraanka waa inaad xafidto iyo wax lamid ah islaam baa waxay sheegtay gabadheeda oo markaa ahayd 12 jir Soomaaligana taqaanay baasho guriga markii la yimid mid reerka darsi lahaabay wuxuu yiri alla ma gabadhii la siiyay baa tan qayb dhaqankeena kamid ah u fiirso ilmahan shock waa ku dhacay marka ma garanayso qof weyn oo oranay alla waa gabadhii la siiyay waan guursan inagu laakiin it used to be okay wax caadi iska ahayd waxay noqotay gabadhii inay dhahdo oh my god he's so disgusting iyo wax la mid ah waxaasoo dhan waa maraaxilay marayaan waxyaabaha ku hayn kara meesha waxaa kamid ah asxaab fara badan oo qurbaha ka timid
oo iyagana la joogta oo da-dooda ah hadday arkaan iyo system support leh taageero loo sii dhisnaa way jeclaadaan waddanka. ilmaha waalidkan igala soo hadlay ooyaya marka dhibka waxaa keenay kuwii qurbaha ka yimid ay yaqaaneen isluqad yaqaaneen oo dhan baa tagay marka keligii baa kusoo haray meesha ma garanay dadkan banaanka jooga. hooye waxay rabtaa inay ilma adeeradeed iyo ehelkii ilma abtiyadeed u tagto gurigii ku caajisay maanta dhan hal ay celiyo oran aabihii baa soo waciyo dhihi ma soo noqonaysid baasaboorka ka qaada quraanka hal la baro dugsigii uu aadana uu la qabsan waayay meeshaas way meesha shoogu ka dhacay. waxaa jira waalid wax la yidhaha the Paris syndrome ama the 20 travelers. the Paris syndrome haddaad maqasho waxa weeyaan dadku Paris waxay ka haysteen meel loo dalxiis tago qabow dad macaan xadaarad ay taalo romantic ah jacayl isaga kaabeermi iyo wax la mid ah. dadkan Japanese-ka waa dad dhaqankoodu fiican yahay waxaan ka wadaa waa dad ixtiraam badan. markay Paris yimaadeen maqaaxi bay la qabsan waayeen qof qaylaya meel zaxmad ah waitersi kula hadlaya ixtiraam aan lahayn shock baa ku wada dhacay. marka Paris syndrome waxaa la yidhaha dadkii ka yimid Japan ee Paris yimid ee uu ku dhacay cultural shock oo xitaa qaarkood uu ku dhacay panic attack iyo xanuunada dhimirka oo markii dambe safaaradooda loo diray oo la yidhi daweeya. waa wax dhici kara qofka daltabyo wax la yidhaha inaad meeshaad ka timid mar walba aad u xiisto. siirada waxaan ku baranay Caaisha markii lasoo hijrooday Madiine la yimid in mar ay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ku tiri yaa rasuulallah waxaan soo maray maanta aabahay Abubakar iyo Bilaal oo labadaba xanuunsan Madiina la soo galay markaa laga yimid oo markaas Bilaal uu gabay kaga faaloonayo Maka iyo xaafadihii ku soo koray iyo togogii uu mari jiray isagoo muujinaya homesick waxa la yiraahdo daltabyo. waxaan u jeedaa waalid cultural shock waxa la yiraahdo ee marka ilmaha wadankii la geeyo ku dhaca waa wax sax ah oo jira sida inagaba wadamadan markaan u nimid uu inoogu dhacay. sidaa darteed ilmaha ha loo dhimriyo system qurux badan ha loo diyaariyo caruur qurbaha ka yimid isfahmayaan ha loo diyaariyo jaariyada guriga ka shaqaysa dadka ehelka jooga qaabkay ula hadlayaan ha loo sii diyaariyo haddii kale ilmaha waxaa laga yaabaa wadanka inay nacaan. allah awlaadeena badbaadiyo. fadlan muuqaalada sheer gareeya. wassalaamu calaykum waraxmatullah.